Waan idin salaamay asxaabteyda. Maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago kiniinigan loo yaqaano pregnancy care. Pregnancy care waxaa loogu talagalay hooyooyinka inay qaataan xilliga ay uurka leeyihiin iyo xilliga ay nuujinayaan. Dhaqaatiirtu waxay ku talinayaan in hooyada ay qaadato xilliga ay uurka leedahay. Uurka ka hor way qaadan kartaa, balse maxaa muhiimad la siinayaa inta ay uurka leedahay oo idil in ay qaadato. Faa'iidooyin fara badan ayuu u leeyahay cunuga iyo hooyada. Hooyadu wuxuu ka ilaalinayaa dhiig la'aan inay ku yimaado, inay tabarta ay ka tagto oo tabar la'aan ay noqoto, waxyaabo nafaqo dara inay ku imaadaan, waxyaabahaas oo idil ayuu ka ilaalinayaa. Cunugana wuxuu ka ilaalinayaa in uu ku dhasho xaalado ama xanuuno aan daawo lahayn, sidoo kale inuu neerfihiisa dhaawac gaaro ama inuu bilo dhiman dhasho asoo bilihiisa la gaarin hooyada inay soo tuurto ayadoo ay sabab u tahay nafaqo daro iyo wixii lamid ah. Taasna wuu ka hortagayaa. Muxuu ka kooban yahay waaye kiniinigan? Wuxuu ka kooban yahay waxyaabo fara badan sida vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin C, folic acid, vitamin B12, iron, zinc, iodine iyo fitamiino kale oo faa'iido fara badan u leh hooyooyinka inta ay uurka leeyihiin iyo inta ay nuujinayaanba. Waxa uu ka kooban yahay kartoonka aan tirtaan 30 xabo oo kiniin ayaa ku jirto. Waxaa loogu talagalay hooyada inay qaadato 30 maalin oo ay la mid tahay maalin kasta ama 24 saac kasta waxay qaadanaysaa hal xabo. One time is on ayay u isticmaalaysaa. Marba haddii aad ogaatid in aad uur leedahay, la xiriir dhakhtarkaaga si uu kugu qoro fitamiinada. Ku dadaal fitamiinada si aad uga hortagto dhiig la'aanta iyo waxyaabaha kale oo saameynta ku leh adiga iyo ubadkaagaba. Mahadsanid.